madaxweyne Farmaajo oo hogaaminaya musharaxiinta ugu cadcad xilka madaxweynaha qarkana u saaran in dib loo doorto ayaa maanta jeediyay khudbadiisa baarlamaanka. Farmaajo maanta wuxuu muujiyay inuu ka xoog badan yahay kana rajo wacan yahay intii la filayay. Markuu soo galay afisyooni xildhibaanada taabacsan ayaa hoolka soo buuxiyay, halka musharaxiinta qaar ay khudbeeyeen hoolka oo cidla ah tiyo bedeshay filashada dadweynaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa la gulay yimi khudbad uu ku qeexayo fursadaha uu dalka u hayo iyo halka uu gaarsiiyay 5 sano ee la soo dhaafay. Wuxuu sheegay inuu ka takhalusay isbedel doonka fadhiidka ee dalka ragaadiyay, uuna hirgeliyay isbedel doon ka socda oo uu tilmaamay inuu dalka gaarsiiyay horumar iyo baraare. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baarlamaanka weydiistay inay mar kale dib u doortaan ayaa sheegay inuu horumariyay dowlad wanaagga iyo wadaniyadda, la dagaalamay musuqmaasuqa iyo qabyaaladda, ku guuleystay murankii dacwadda badda, soo celiyay maamulka hawada Soomaaliya oo laga xukumi jiray dalka Kenya, korna u qaaday dhaqaalaha iyo ammaanka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo baarlamaanka u jeediyay khudbad hadalhayn badan abuurtay wuxuu sheegay inuu yahay hogaamiyaha kaliya ee doorasho qof iyo cod dalka ka qaban kara. Wuxuu kaloo sheegay in 2017 lagu wareejiyay dowlad aan ammaanka ku filnayn, kadibna uu abuuray ciidamo u babacdhigi kara argagixisada, tiyo si hufan loo hubiyay tiradooda, tayadooda iyo saadkooda. 63 biloodna ay si joogto ah u heleen mushaharkooda. Madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya wuxuu tilmaamay inay dagaal qaraar al-shabaab kaga xoreeyeen Sabiid, Caanoole, Janaale, Marka iyo deegaano kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladdiisu ay salka u dhigtay nidaamka maaliyadda oo xatooyo dhex dabaalanayay markay xilka la wareegeen, iyadoo dakhliga gudaha uu kor u kacay 2 bilyan oo deyn ahna laga cafiyay dalka. Kadib markii la hubiyay cashuur ururinta, isla xisaabtanka iyo hufnaanta maaliyadeed, madaxweynuhu wuxuu sheegay in maanta la yaqaan xogta shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida oo lagu diiwaan geliyay nidaamka biometriga casriga ah, kuwaasoo qaatay mushaharkooda muddo 5 sano iyo 2 bilood ah oo uu talada hayay. Guulaha uu madaxweyne Farmaajo ka mahad sheegtay waxaa ka mid ah inuu ka gilgishay kana dagaalamay faragelinta dalalka shisheeye oo uu tilmaamay inay doonayaan inaan Soomaaliya marna cagaheeda isku taagin. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay inuu shaqo abuur u sameeyay dhalinyarada oo ah tirada ugu badan ee bulshada, xabsiyada dalalka shisheeyena ka soo daayay dhalinyaro sanado badan ku cadibnaa. Khudbadiisa wuxuu ku tilmaamay in siyaasadda arrimaha dibaddu ay noqotay mid madax bannaan, uuna soo celiyay maamulka hawada Soomaaliya oo dowladda Kenya ay maamuleysay muddo 30 sano ah. Xukuumaddiisuna ay dib u hawlgelisay nambar sharciyeedka duulista diyaaradaha Soomaaliya ee 06. Guushii dacwadda badda ee soo afjartay murankii iyo doonistii gardarrada ahayd ee dowladda Kenya ayaa Farmaajo ku tilmaamay inay noqotay guul taariikhda gashay oo ku timi dhabar adayg iyo daacadnimo. Madaxweyne Farmaajo gunaanadka khudbadiisa wuxuu ku ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu keenayo nabadgelyo waarta, qabtona doorasho qof iyo cod ah oo matalaad sax ah siin karta muwaadiniinta Soomaaliyeed.